التاريخ وفوائده بين دور قضاء هردعك ورندونا إن شاء الله. وكيف نقرأ وكيف نكتب سيدا تاريخ ذا الله قرية هي سيدا الله أخرية هي محي فائدة لهذا تاريخ ذو وحويا ومرآة المستقبل مستقبل كصوص عدم مرايات اللقو إيغو اللقو صحاه وتاريخ هراء وماذا هذه يتر تاريخ ذا كفائدة يسته وفشل كوكو يرى فشلاده dadka ilaawo wixii horena waxa ku badata turunturada umaduhu meelaha ay had iyo jeer isku xalaan bay ka mid tahay taariikh dadka muslimiinta waa inay taariikhdooda ay u qorant iyaguna ay qortaan aan loona yeerinin maanta haddaad eegto iskuuladeena taariikhda manaahijta ummado kale laga soo qaata taariikhda caalamka iyo taariikhda muslimiinta waxay isku dayayaan inay dadka u yeedhiyaan ama loo dhigo ardayda taariikhda madow ama meelaha dhaliiluhu ay ku jireen dadka muslimiinta fitnooyinkoodii qabaa'ilisa isu laayeen xumaantii dadka ka dhexdhacday waxaasay xayeysiiyaan التاريخ البيضاء taariikhda cadna way qariyaan taas dadka waxa ujeedadu marka ay tahay daayirta waxa ku beermaya wuxuu noqonayaa islaamku iyo ehelkiisu inaan ahayn wax wanaagsan maadaama waxa taariikhda u ahaba waxan yahay halka iyagu laga yaabo inay wax walba ka dhigaan wixii caalamiga ahaa inuu yahay oo iyaga ka yimi wax wala wanaagsanida xaggooda ceebahoodana ay qariyaan idan waa muhiim dadka muslimiinta taariikhdooda habka u akhriyaan habkay u qorayaan bayna mustaqil wahabaan waa cilmi ka sheekeeya ahwaal al-tawaa'if wal buldan wal a'yan dalalka iyo dadka iyo taariikhdooda iyo isbedelada ay mareen iyo diimahooda waxa laga yaabaa taariikhda barashadeeda iyo akhriskeedu mararka qaar kood inuu waajib noqdo kifaaya oo siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam in la barto iyo axaadiisiisa wixii daas xagga sanadka iyo siiradii asxaabta waa arin laga maarmaana iyo ragga xadiidkaba soo warinaya taariikhdooda in la barto sida loogu saxo nusuustii afar dhinac bay u badan tahay mid waxa weeyaan sidoo saxaawi markuu qaybinayo oo tilmaamayo illa sheego dhikru khuraafaat almansubati ila al-anbiya anbiyada iyo taariikhdooda in la barto sida u saxsan nusuusta ku soo aroortay loo barto oo qisas badan oo khuraafaad ah ayay ku soo dareen reer banu israa'iil xataa tafaasiirteena ku yaala marka maxaa daciifa maxaa mawduuca maxaa saxiixa in la kala garan karo sidoo kale wixii asxaabta dhaxdhacay iyo sida lagu cudur daarayo dadka iyo shisheeyuhu sidoo u fasiray in laga bayro oo marka la ogaado inay dhamaantood wada mujtahidiin ahaayeen waxa saddexaad dadkii mas'uuliinta ahaa ee muslimka madaxda u soo ahaan jiray iyaga laftigooda maxay wanaag lahaayeen maxaa kif dhacay ummadihii hore iyagana waynu arki doonaa faa'iidooyinka qisada ama taariikhda laga helo waa dhowr kan arrimood tathbiitu quluubi almu'miniin dadka mu'miniinta qalbigooda ayaa la dejinaya la sugaya oo qofku markuu yaqaan adduunyadu sida u soo taxnay iyo lagdankeedii waxa cusub hortiisa uu ku bilaaminaya wuxuu leeyahay waxani wax curada ma aha wax ugubaho hore u soo dhici jiray ilaahay baa wuxuu wakadalika wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak rusushaanu qisooyinkooda ku sheegayno dhan qalbigaaga ku dajinaynaa nabi maxamedow waxaad isku qancinaysaa waxani show kaliya kuguma ahe de nabiyaashii hore waxani way soo mareen wa sabiil ila ma'rifati siyar as-salihin wal ibtida'i bihim dadkii wanaagsanaa adduunyada inooga horeeya dariiqan maray dhaqankoodii wanaagsanaadaynu helayna waana aynu ku dayanaynaa dee rasuulkaaba ilaahay uu ulaa'ika alladhiina hada allah fabihudahum iqtadi nabiyaashii ilaahay ka soo sheekeeyay wuxuu kuwa ilaahay ba hanuuniye aduguna ku dayo marka inaguna waynu ku dayanaynaayo noloshu waxa loo baahan yahay cid lagu daydo wanaagsan la helo wa sabiil ila akhd al-ibar wa ad-durus min as-sabiqin ودوينك خبرات استلقوا ورسلوي أيامها تشوكتا ويرت لكن بقلال أمضاد بقلال سنة إيا كميال سنوات taariikhdii soo taxnayd iyo tijaabadii la soo maray
ayaa daliilku kuu dhiibayaa marka qofka qisaskan aqoonta u leh waa khabiir cibrooyin iyo casharo badanna wuu helaya laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ummadaha laga soo sheekeeyey qisooyinkooda cibro iyo cashara laga qaadanayaabaa ilaahw akufaarukum khayrun min ulaa'ikum aan idhaahno midka afraad waxa weeyaan macrifatu sunan اlkowniya min sunan الtamkiini waالnasri wanihaayati الظaalimiin adduunyadu see u soo taxnayd iyo siduu ilaahay u soo wada iyo isbedelada nolosha iyo sida loo kala adkaada iyo baadilku inuu suulayo xaquna guulaysan doono waxaasoo dhan baad qisooyinka qur-aanka ku badan ka arkaysa alla wuxuu idhi akufaarukum khayrun min ulaa'ikum kuwaasaan idinka soo sheekeeye gaaladiinnan imika jooga markii qur-aanku soo degayey miyaa ka wanaagsantiin buu ilaahay waddadii kuwaa la mariyey unbaa idinkana laydin marin wakadalika nunji lmu'miniin aayad kale sidaan dadkaa mu'miniintaa u badbaadiyey mu'min had walba saasaan u badbaadinaya wahal nujaazi ila alkafuur baa mar kale ilahay wuli abaalmarinta noocaasa mid gaalnimo badan unbaa la kulmaa waa tusaalayaal qodobka afraad qisaska qur-aanku waa min axsani alqisas qisaska qur-aanku uu sheegayaabaa qiso ugu wanaagsan habku u sheegayaana ma habka noofallada iyo sheekooyinka loo akhriyo bugaagta lagu qoree waa hab quluubta afiraya oo saamaynaya oo tarbiyad laga qaadanayo alla wuxuu uhi naxnu naqusu calayka axsana alqasas qisooyinkii u wanaagsanaa ayaanu kugu dul akhriyayna qur-aanka dhexdiisa culammadu waxay leeyihiin dhowrkan siyood baa qur-aanka qisooyinkiisu ay u noqdeen qisooyinka kuwa ugu wanaagsan waa hiya xaqun wa sidqun dee waa dhab warka ilaahay lagama shakiyo oo xataa naskhigu waxyaabaha uu galo qur-aanka meelaha la nasakho qisooyinku kuma jiraan ilaa haddii la nasakho macnaheedu been buu noqon lahaa marka warka ilaahay naskhi ma galo idan warkii ugu runsanaa weeye ina hada lahuwa alqasasu اlxaq naxnu naqusu calayka naba'ahum biاlxaq lafdiga xaq buu ilaahay ku qaydaya qiso runa ayaad ilaahay ka qaadanaysa midda kale ilaaha mukhbirka addoomaha u warramaya qisooyinkan waa caalim bitafaasiiliha wa daqaa'iqiha shay walba guntiisa hoose iyo asraartiisu ka soo warramaya ilaahay mucjizaadka qur-aankay ka mid tahay ummadaha hore waxaanay ka warrami karin inuu ka warramayo falanaqusanna calayhim bicilm wamaa kunna haa'ibiin maan maqnayn baa ilaahay uhi waxaasoo dhammi markay dhacayeenoo warkan idiin sheegayaa cilmi buu ku salaysan yihin qisooyinka qur-aanku sheegaya iyo daliilka ileen kuwa nebigu inoo sheegayna ilaahay unbaa inoo sheegee wax kastoo la sheegayna faa'iida la'aan looma sheegin wax kastoon la sheeginna faa'iidaan ku jirin asxaabulkaafi markuu ilaahay ka warramaya waxau idhi qul rabbi aclamu biciddatihim maa yaclamuhum ilaa qaliil falaa tumaari fiihim ilaa miraa'an daahira markaa tiradooda ilaahay unbaa yaqaana hadday muhiimtahe waa la sheegi lahaa wey waxyaaba baraarujin oo tambiihaada waxaa ka mid ah taariikhdii ka dambaysay nebigii asxaabta maala madaxdii muslimiinta iyo dowladihii iyo boqortooyooyinkii iyo mamaaligtii had iyo jeer ragga cilmiga xadiidka culamaau takhriij loo yaqaano ee kala haadiyaa aada uma cuskadaan siduu dahabi oo kitaabka u weyn taariikhda qoray kutubta u waaweyn mid ka mid ah uu sheegayo ahluljarxi watacdiil aada isuguma howlaan buuri sababtuna waxa weeyaan buuhi taariikhdooda marka la doono dadkii wakhtigaa la joogay inay wax ka qoraan waa laga cabsan jiray oo in saxdeeda iyo khaladkeeda lasoo bandhigo way ku qabsan jireen dadka shaagle laga baqay sidaa daraaddeed ayaa inta ay nool yihiin aan waxba laga qori jirin marka taariikh la cuskan karo had iyo jeer ayay noqon weyda way ka baydhaan had iyo jeer culimmadu markay ka warramayaan taariikhda iyo dadkaa wax laga qorayo wanaagsan waxay leeyihiin aadaabtu waxa weeye assalaam waataradi waataraxum dadkaa hore wax laga qorayo ciddii salaam leh sida ambiyada iyo dadkaa maaragtay in iyaga salaam calayhi salaam ama in tasliimtii la siiyo asxaabtana in taradigii la siiyo radia allaahu canhu dadkii ka sokeeyeyna raximahu llah la yidhaahdo nin culimada xanaabilada ka mid ahaa oo shanboqolaadkii dadkii noolaa ka mid oo wax qoray ayaa wuxuu lahaa yaqbaxu bikum an tastafiiduu mina uma tadkuruuna walaa tataraxamuu calayna war dadkiina taariikhdaanu qornay sii warinayow
waxaan idinku wanaagsanayn intoo naga faa'iidaysataan inaa allaha u naxariistana odhan weydaan qof aad ka faa'iidaysato aqoon kuu soo gudbiyey miyaad u quuri weyday buuhi allaha u naxariisto dee raximahullahu nala ogaada buuhi haddaad naga faa'iidaysateen waxyaabaha qisaskan aadaabta lagu qoraya waxaa ka mid ah ama lagu akhriyaya altathabut fii ma yuurad min alqisas qisooyinka la soo warinaya ama aad baraajicda ka akhriyayso waa inaad iska hubsataa wax badan baa lagu daraa alla wuxuu uhi fatabayanuu yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binabayn fatabayanuu hubsinadu waa muhiim qisooyinkay muhiim ku sii tahiyo warka la sheegayo qisooyinka aadaabtooda waxaa ka mida bay leeyihin la sheegayo taariikh alislaami oo dhacdooyinkii nebiga ka dambeeyey iyo dadkii saalixiinta ahaa in laga dheeraado an yutajanab alalfaad aljaarixa dadka dhintee wax laga warinayo erayo adag ama kulul ama dhaliila inaan aada loogu isticmaalin ardaygii shaaficina ardaygiisa ahaa ee musani la odhan jiray oo a'immadii waaweynada shaaficiyada mid ka mida ayaa wuxuu leeyahay samicani shaaficiyu yowman wa ana aquulu fulaanu kadaab imaamu shaafici baa maalin imaqlay anigoo nin ka warbixinayooo cilmiga xadiidka aan ku fiicnaynoo leh hebel waa beenaaleh markaasuu waar ka dhin ka daa buuhi sidaa ha u odhanine faqaala lii axsinhaa laa taqul kadaab walaakin qul xadiiduhu laysa bishay waad ku kululaysee bal adigoo beentiisa sheegaya si kale u dhig buuhi oo waa beenaale afka ha ku ballaadhina waxaad tidhaahdaa xadiiskiisa la qaadan maayo dee intaasaa kugu filan buuhi intaad odhan lahayd nin intee waa beenaale waxaa ka wanaagsan buuhi inaad tidhaahda xadiiskiisa la qaadan maayo ninka ah sidaasoo kalea imaamu albukhaari iyo ayuubiyo waxay lahaayeen erayo lagu yaqaano oo qofka xadiiska beenta dejinaya iyo qofka beenaalaha iyo ka aan looga qaateenka ahayn erayo waxay u isticmaali jireen kuwa dadka ka sokeeya iyaga oo had iyo jeer aadaabta ilaalinaya waxaanay odhan jireen lianlaa yatacawada lisaanu linsaan qofka carabkiisaa caadaysan kara waa beenaale iyo waa mutaham iyo waa midxun iyo saad u wado waxaa laga yaabaa dadka kula joogana inaad ku daldasho oo iyagana intaa in lagaad ku tidhaahdo almuhim taariikhdu muhiimaddaasay leedo qofka mutacalimka ah ama madaxda ah ama aqoon-yahanka ah waa muhiim taariikhdii ummadihii wakhtigii hore kuwa hadda jooga taariikhdii dadkii wanaagsanaa ambiyadii madaxdii muslimiinta taariikh alislaami legdankuu lahaa loolanka iyaga iyo gaalada ka soo dhexeeyey markaad wax badan ka og tahay adduunyada aad la nooshay waxaad ka sixi karaysa